gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee UNZOM iyo hay'adaha taageeraha dhismaha dawladaha hoose waxayna ka wada hadleen horumarinta magaalada Gaalkacyo iyo sida Gaalkacyo ay qayb uga noqon lahayd magaalooyinka ka faa'iideysta mashruuca horumarinta dawladaha hoose. duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa mas'uuliyiinta ka kala socda hay'adaha kala duwan warbixin ka siiyay waxqabadka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ay ku tilaabsatay iyadoo aysan taageerayn deeq bixiyaasha isla markaasna horumarkaas lagu gaaray isku tashi bulsho. xubnihii ka socda hay'adaha kala duwan ee la kulmay duqa degmada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay sida ay bulshada Gaalkacyo isugu tashatay waxayna ballan qaadeen inay taageeri doonaan maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo isla markaana dhawaan la bilaabi doono barnaamijka horumarinta dawladaha hoose ee GPLG oo Gaalkacyo aan laga sameyn muddadii uu xilka hayay maamulka hadda jira. Xirsi Yuusuf Barre duqa degmada Gaalkacyo oo warbaahinta la hadlay markii uu kulanku dhamaaday ayaa sheegay in maamulkiisa uu dib u saxay qaladaadkii ka jiray golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo sabab u ahaa in maamulkiisu uu heli waayo barnaamijka horumarinta dawladaha hoose. nagala shaqeeyaan dawladda hoose runtii waxa ugu muhiimsanayd barnaamijkan la yiraahdo GPLG waxa socday ku xigeenkii mashruuca GPLG oo hay'ado badan ay ku midaysan yihiin waxaan kaloo joogay UNZOM waxa joogay IOM hay'adahaas oo dhan waxaanu ka wada hadalnay sidii daahitaankii muddada dheer jiray oo degmada aan maaragtay wax shaqo aysan nagala qabanin ayana way ka cudur daarteen waxayna sheegeen inay si fiican hadda ula shaqeyn doonaan Gaalkacyo muddo waxa lagu jahwareersanaa barnaamijka GPLG-ga oo ka maqnaa magaalada Gaalkacyo dhinaca koonfure dadweynuhu waxaan rabaa reer Gaalkacyo inay ogaadaan shuruudihii GPLG looga baahnaa waan soo dhameynay anaga ka degma ahaan laakiin caqabad hore u jirtay oo waxa jirtay golihii deegaanka iga horeeyay oo maayar bay lahaayeen iyo golo deegaan shuruudaha ugu muhiimsan oo lagu bixiyayna ka mid tahay in meeshu maayar la doortay iyo golo deegaan leedahay ayagu kama ka faa'iideysan dadkuna ma fahamsaneen barnaamijka inuu maqan yahay ilaahay mahadi waa maaragtay halkan dheer oo aan galnay ka bacdi barnaamijkii sanadka soo socda hadii ilaahay uu bilaabanaya hawshina hay'adihii way galayaan. ugu dambeyntii xubnihii ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo duqa degmada Gaalkacyo ayaa si wada jir ah u kormeeray xafiisyada ay ku shaqeyso dawladda hoose iyo qaybo dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono xarunta dawladda hoose. Saadaq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.